هلو السلام عليكم magacayga salaad muuse maxamuud kusoo dhow salaad janaalka salaad Soomaali technology waxaa noo socdo tutorialkeeni C language xalaqadiisii if statement topic-gan wuxuu ku saabsan yahay if else statement decision making wax soo qaadanay waxaan soo qaadanay conditional statement simple if statement waa soo qaadanay topic-gan wuxuu ku saabsan yahay hadda number 2 if else statement if else statement if else statement syntax-keeda waxa waa if test expression statement waa true block else statement waa false block syntax waxa waa if test expression-ka ayuu computer-ka jeegrayna haddii uu sax noqdo compile-ka haddii uu sax noqdo statement-ga oo true block statement ayuu noo execute garayna ama uu noo daabaca haddii test expression-ka uu markuu jeegray haddii uu false noqdo qalad else statement block false block ayuu noo daabaca okay waxaanu isticmaalaynaa code block topic-gan wuxuu ku saabsan yahay if else statement syntax-ka waa qaabkan code-keena program-keena ayaanu gudagelaynaa waxaan leenahay printf enter if n percentage d percentage 2 equal 0 program-keena waxaa dhahnay int main int n printf int number scanf if n percentage 2 equal 0 printf the number is if n ls printf the number is odd program-keena wuxuu ku saabsan yahay waxaa isbarbar dhigaynaa number gelinay numberkaas inuu odd yahay kisi ama se inuu dhaban yahay oo ifin iyo odd inuu kala yahay waxaan u isticmaalaynaa if else so waxaan leenahay program-keena ability micneeda waa compile wax qalada ma lahan then waxaan sameynaynaa run waxuu dhahay enter number waxaan gelinaynaa tusaale 5 muxuu noqonaa ma ifin uu noqonaa mase odd 5 oo odd asiga inoo sheega wuxuu dhahay the number is odd okay next example waxaan leenahay tusaale ability next example waxaan leenahay tusaale 20 waa even so siga inoo sheega but the number is even so another example waxaan qaadanaynaa 15 waa is odd one okay but the number is odd okay
وكاسا بروجرام كينا waxaan ku isticmaalahaynaa inuu yani JAWS uu qaataa si labadan JAWS first wuxuu dhahay numberka markaa geliso n percentage 2 equal 0 printf the number is even else otherwise the number is odd marka tusaale kale number marka qaato uu fiirina hadii uu fin yahay even uu ka dhiga if statement markii sax tahay if statement uu qaadana hadii uu ka diido waa qalad wuxuu qaadana else statement tusaale kale example kale aan qaadanayna another examplealo waxaan leenahay int a comma b semicolon printf if a is greater a is maximum else example keena kale waxaan qaadanaynaa tusaale kale a i b labadaan qaadanay waxaan dhahnay printf enter the value of a and b waxaan gashanay qiimaheennii a i b then waxaan leenahay if a is greater than b then printf a is maximum else printf b is maximum then waxaan sameynaynaa value siinayna a b a haddii ka weynta b uu jeegarayna a haddii ka weynta b wuxuu dhahaa a is maximum haddii a aysan b ka weyneyn uu state oo conditionka ama expressionka uu qalad noqdo wuxuu leeyahay wuxuu qaadana else statement first uu jeegarayna haddii ay sax noqoto wuxuu qaadana if block if statementigana uu qaadana haddii qalad noqotona wuxuu qaadana next else uu qaadana waxaan leenahay compilability xaqaada ma lahan then waxaan leenahay wuxuu dhahay enter the value of a and b waxaan leenahay 10 20 oo kala qaadanaynaa 10 waxa iskale a 20 waxa iskale b so hadda a kama weyne b so wuxuu qaadana else statement b is maximum okay b is maximum leenahay tusaale waxaan qaadanaynaa a waxaan qaadanaynaa 30 b na waxaan qaadanaynaa 10 a way ka weyn tahay b sax if statement oo if block statement uu qaadana a is maximum okay waa kana a is maximum so waa kaasa sala kala qiimo kala qaadanaynaa a waxaan qaadanaynaa 23 b na waxaan qaadanaynaa 60 so b ayaa weyn waa kana b is maximum
علاقة في الستيتمنت خلاص يعني كاش لو وقتاي نقصتي waxaan qaadan doonaa lesson soo socdo qaadan doonaa nested if else statement waxaan noogu xigi doonaa else if later